casharkan insha Allah waxaan ku qaadanaynaa sida scientific loogu isticmaalo ama loo geliyo mean waxyaabo la mid ah marka waxaan ku bilaabaynaa casharkeena hadda kor aan soo qaadanay ahaa mean for ungrouped data example-kii ahaa 4.5 wuxuu ahaa state the mean of the following set of the data waxaan haysanay a b c saddexdaas xabo su'aasha haddii laga shaqeeyo mean wuxuu ahaa isku darka numberska aan haysano oo loo qaybiyay inta ay yihiin waxaan noo soo baxday 6.22 waxaan kaloo haysanay qaybta b haddii la isku soo daro inta ay yihiin loo qaybiyo waa 57.6 qaybta c haddii la isku soo daro inta ay yihiin loo qaybiyo waa 75.6 idan marka waxaan rabnaa sidee scientific loogu isticmaalo oo numberkaas loo soo saari karaa ayadoon wax shaqo ah aan la qaban marka waxaan ka bilaabaynaa scientific marka hore waa daaraysaa markaad daarato waxa ugu horeeya aad qabanayso intaadan aadin shaqada waa in aad iska masaxdaa oo iska nadiifisaa see loo nadiifiyaa marka waxaad leedahay shift mode waxa ku soo baxayo warbixintaas kadib marka waxaad taabanaysaa 3 waxaad leedahay equal laba jira hadda marka waa ku nadiif marka si loo geliyo mean xogta markay tahay ungrouped data si loo geliyaa waxaa leenahay waxaad taabanaysaa ila soco waxaad taabanaysaan mode oo hal mar ah mode oo mar labaad ah meesha waxaa ka soo baxay marka SD waxaa laga soo gaabiyay standard deviation waa 10 noo imaanayo numberka SD uu wato waa number 1 inta marka waxaad ka taabanaysaa number 1 meesha marka waxay noqonaysaa meel ibir ah markaysa inkastoo ay saaran tahay SD ay ku saaran tahay see loo geliyaa marka su'aasha waxaan ka bilaabaynaa a waxaan haysanaa 4 9 3 7 5 6 7 8 7 marka waxaan rabaa in numberska scientific aan geliyo oo mean aan ku soo raadiyo oo jawaabtaas 6.22 ay soo baxdo marka waxaan ka bilaabaynaa 4 marka tiraado inta numberka labaad aadan gaarin waxa taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay m+ ay 9 m+ 3 m+ 7 m+ 5 m+ 6 m+ 7 m+ 8 m+ 7 m+ marka waxa soo qormaya n = 9 oo macnaheedu uu yahay 9 number ayaad gelisay inta marka sameeyso stepka xiga waxaad leedahay shift number 2 waxa ku soo baxa marka x bar numberkiisu waa number waxa ku hoos aadan 1 marka waxa taabanaysaa 1 equal marka waxa ku soo baxay 6.22 markaysa 6.22 qaybta labaad aan geliyo oo b ah tan iga masax marka si qaybta b loo geliyo soo bilaabayna waxa taabanaysaa mode SD kadib waxa leenahay conton m+ 62 m+ 53 m+ 55 m+ 59 m+ 55 m+ 62 m+ 65 m+ wuxuu ku soo qor marka n = 8 oo macnaheedu uu yahay 8 number ayaad xareysay marka si aan u helo mean waxa leenahay shift number 2 inta marka waxa soo baxayo x bar oo number 1 ah number 1 taabo kadib waxaad leedahay equal waa 57.6 waa taas waa jawaabta markaysa 56.7 haddii aan ku soo qatimo qaybta c iska masax markastaba hadii kale xogtii hore xareysan waxaa leenahay mode SD marka meesha waxaan qoran 70 m+ 85 m+ 81 m+ 67 m+ 75 m+ n = 5 bimacnaa 5 number ayaad gelisay waa inta markaa sameeyso si mean loo helo shift number 2 aad taabanaysaa waxaad ka sii dooranaysaa x bar ko number 1 ah kadibna
equal waxaa noo soo baxday 75.6 waa jawaabti bilaa tawfiiq